Yo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waar soo dhawaada, waxaan idinka gaadhsiinayaa wararkii ciyaaraha ee haddadan soo dhacaya. Qoladii Manchester United la odhanayay waxa ay dalab u dirtay ninkii Watkins la odhanayay Aston Villa oo ciyaarayay. Aston Villa waxa ay ku tiri annaga Watkins waxa uu noo yahay ciyaartoy muhiim ah. Adigu dalabkii koowaad waa la dirayaa, ciyaartoyga waa la fadhiisanayaa. Adu Manchester United waxa ay doonanaysaa Dari Watkins sababtoo ah meesha kuma hayso weeraryahan waxaan ku 20 gool dhaliya seasonkii inkastoo ay la soo wareegtay Mbuma iyo Kunia. Dhanka kale Manchester United waxa ay dalab kale yadna ay u dirtay Aston Villa oo ay uga dirtay Martinez goolhayaha kaasoo ay kula soo wareegasay heshiis amaah ah. Laakiin Aston Villa waxay tiri anagu amaah kuma dhiibino Martinez. War kale soo dhacaya ayaa ah ninkii Raheem Sterling Chelsea waxa ay go'aansatay inay iibiso sida la wada socoteenba waxaanay u soo bandhigtay Napoli-na weli waxaan ku kama hadal inkastoo Napoli ay waxaan ku eegayso Grealish iyo odugwa ay eegayso laakiin Chelsea waxa u soo bandhigtay Sterling. Dhanka kale ninkii Son ee Tottenham ciyaarayay ayaa isagana la xiriirinayaa inuu ninkii Son isagana waxa laga soo dalbanayaa dhankaas iyo Mareykankii. Imika waxa uu doonayaa inuu la fadhiiso Thomas Frank si uu la hadlo oo uga wareysto habka uu ciyaarsiin doono oo mustaqbalkiisa uga go'aansado haddii uu taag jiro. Marka ninkii Son xaggaas dalabaad looga imanayaa kooxda uu ciyaarayay ninkii AC Milan Giroud halkaas dalabaad uga imanayaa wixii waray soo dhacana waa idinka soo dabageynayaa channelka subscribe noo saara halkan aad kala soconaysaa ciyaaraha hadda kadib.